السلام عليكم معمر القذافي madaxweynihii xoogga lagaga tuuray talada dalka Liibiya daawadayaal muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa xaqiiqooyin aadan ka ogeyn madaxweyne Qadaafi xaguu ku dhashay xaguu ku qaatay waxbarashadiisa seebuu ku galay siyaasadda dalka Liibiya nacayb intee leeg ayuu u qabay qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka inta iyo ka badanba ayaad uga bogan doontaan warbixintan fadlan nala daawo muuqaalkan. إذا لم يتحقق كل هذا أنا بعد ذلك سنعلن الزحف المقدس. أيوة، وأنا أراه معمر القذافي قائد أممي، أنا دافع عني الملايين، أنا سنوجه نداء للملايين من الصحراء إلى الصحراء. magaciisa oo dhammaystiran waxaa la yiraahdaa Muammar Mohammed Abdisalaam Abu Manyar al-Qadaafi waxa uu ahaa korneyl dhanka ciidamada ah sidoo kale waxa uu ahaa hogaamiyihii hore dalka Liibiya waxa uu dhashay 7 bishii Juun sanadka markuu ahaa 1842 isagoo ku dhashay magaalada Sirta ee dalka Liibiya halkaas ayuu ka bilaabay waxbarashadiisii hoose sanadii 1956 kadibna waxa uu u gudbay magaalada ku taala koonfurta Liibiya oo lagu magacaabo Sabha si uu ula noolaado hooyadii waxa uu sidoo kale aqoontiisa dugsiga sare ku dhamaystay magaalada lagu magacaabo Misrata taariikhda oo markaasi ku beegnayd 1962 intaas kadibna waxa uu ku biiray jaamacadda kulliyadda dagaalka ee Benghazi isagoo ka qalan jabiyay sanadku markii uu ahaa 1965 Muammar ayaa guursaday 2 jeer waxa uu ahaa aabaha 8 caruur ah Qadaafi ayaa talada dalka ku qabsaday Afgambi sanadkii markii uu ahaa 1969 isagoo ay hareer taagnaayeen saraakiil ciidan ah oo lagu magac daray Janaaradii Xoreynta kuwaasoo meesha ka saaray boqortooyadii dastuuriga ahayd waxaana talada laga tuuray hogaamiyihii lagu magacaabi jiray Idris al-Awwal madaxweynihii la dilay ee Muammar al-Qadaafi ayaa ugu magac daray kacdoonkii uu xukunka kula wareegay magaca kacdoonka furashada halka uu naftiisa ugu magac daray hogaamiyihii kacaanka halka sanadka markii uu ahaa 1977 uu u bixiyay magaca al-Jamhuuriya waxa uuna xukunkiisa ku jaan qaaday hanaan ku dhisan maroorsi kacaan oo ku dhisan Afgambi waxaa jiray khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo reer galbeedka is-afgaran waagaas ayaa gaaray in diyaaradaha Mareykanka ay duqeeyaan madaxtooyadiisa sanadka markii uu ahaa 1986 hase ahaatee waa uu ka badbaaday weerarkaasi madaxweyne Qadaafi ayaa waxa uu ahaa madaxweyne mayal adag isla markaasna aad u xukun jeclaa waxa uuna inta badan aad u dhaleecayn jiray madaxda boqortooyada Saudi Arabia waxa uuna wadanka Liibiya xukumayay muddo gaarsiisan 42 sano madaxweyne Muammar ayaa kadib markii uu xukunka dalkaasi qabsaday ayaa waxa uu si weyn u taageeray jabhadihii xorriyad-doonka ahaa ee ka jiray dalka Falastiin sidoo kale Muammar waxa uu xiriir wanaagsan la sameeyay midowgii Suufiyeed waxa uuna dhowr jeer uu safar ku gaalaa bixiyay caasimadda wadanka Ruushka ee Moscow Muammar al-Qadaafi ayaa la dilay 20 Oktoobar ee sanadii 2011 kadib markii kooxaha mucaaradka ku ah ay ka xoog badiyeen xukuumaddiisii isagoo lagu khaarijiyay magaaladii uu ku dhashay ee Sirta waxa uuna saameyn ballaaran uga tagay shacabweynaha Afrika Carabta iyo dhammaan caalamka dad badan ayaa aaminsanaa in dilka Muammar al-Qadaafi ay soo afjarayso kacdoonkii ka jiray dalka Liibiya balse taasi ma suurtoobin dalkiina waxa uu galay qalalaase iyo burbur fadlan haddii uu ku caajibiyay muuqaalkan hoos noogu reeb aragtidaada laagna u dhiirigeli riix calaamadda gaabalaalkaasi muuqaal kasta aan soo gelino uu durba kuu soo gaaro mahadsanid.